يا كيف بحكي لهم ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. aad baan idinku faanaqayaa safarka aad noo yeelateen dhaweynta aad na soo dhaweyseen iyo sharaftii qiimaha iyo nidaamkaa ku fadhidaan. waxaan marka hore ka cudur daaranayaa sidaan arko malaa waqtigii baa yar cidhiidhi nagu noqday. qoladii shir guddoonkaan wada hadlaynay halkaa rag baa gacanta ka taagay. kolle haddii meel la isugu yimaado bani aadmin qof ama laba la dhegeysto looma iman. dadku way iska qarisan ilaahay nagu abuuray. dadku qof waliba ra'yi buu leeyahay, maskax buu leeyahay. dadku inuu hadlo uu jecel yahay. qofkii tala dhiibanaya waa waajib way u fiican tahay in chance uu helo. dhibaatada qura ina haysataa marmarka qaar waxa weeye kulligeen inuu hadlaynu jecel anagan igu daro. marka meelahan oo kale la qabto sidee waktiga ama muddadii meesha layna siiyey ama marka waxyaabaha lagu xisaabtamo oo dunida dee saacado kookooban wax loo qabanayo hawsha mayna wada deeqaysaa wakti mau helaynaa. su-aalaha toosu baa meeshay maraya. marka malaa waxay la tahay qof waliba waynu arkan ilaa ninkii gabayada aad iyo aad u fiican halka kasii daynayay eenu adkaysa ka waran marba soo kobnahay waayo waqti un baa la beeqaaminaya la ilaalinayaa. bal markaa waxaan jecelahay intuu ina gaari karo inuu hadalkooda la gaadho aan qolada shirka hogaaminaya u daaya sida ay dadka su-aalaadkooda iyo dareenkooda fursad loo siinayo bal inay cabiraan ama ay yidhaahdaan ama su-aal weydiiyaan. taa marka laga yimaado aan u gudbo aniga hadalkayga intii aan isku dayi karo waan isku dayaya inaan soo kooba haddii alla isdhigto. marka ugu horeysa horta salaam baan idinka soo gudbinayaa ummaddii iyo dadkii iyo shacbigii aan ka imid. marka labaad aad iyo aad waxaan idinku mahadinayaa soo dhaweynta kulligiin iyada oo aan ka hadlayay mujtamaca halkan jooga iyo bulshada reer Sweden ee magaalooyinka kala duwan ka yimid muxuu ahay xisbigay doonaa ahaadeen ama xisbigay ahaanin ee halkan lagu soo dhaweeyey ee martiqaadka sharafta loo fidiyey ee ixtiraamkii qadarinta loo muujiyey aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. marka labaad waxaan halkan doonayaa iyagana inaan mahad uga cesho. marka Somaliland community-ga laga yimaado halka kan qolada la yidhaahdo muxuu ahay liberal party-ga silk oo aad iyo aad iyaguna noo soo dhaweeyey oo halka hawlo fara badan ala qabtay oo martiqaadka ka qayb galay oo noo arrange gareeyey inaanu aragno meelo badan oo ka mida dowladda iyo xisbigooda iyo hay'ado kala duwan oo Somaliland wax u taraya, xisbigana wax u taraya, qarankana wax u taraya oo danaha reer Somaliland meel fog gaarsiin kara. dadkaasi waxaan bay fursad inoo siiyeen, fursado aanu ku wada hadlay inoo siiyeen, dareenka aanu u muujinayno, polisiiskayga u sharaxno, xaaladdu halkuu dalku marayana uga warrano. marka iyagana mahadnaq ballaaran baan halka uga soo jeedinayay. intaa markaan idhaahdo horta annagu halka waxaanu nimid bishii May 16 ayaan Somaliland ka yimid. haddii ilaahay intii ka dambeysay intii koreysay waxaan joogay dhulka UK la yidhaahdo bisha 4 Julayna waa ku noqonana haddii ay baydmo. berri waxaan u duuli doonaa wixii ka dambeeyay waxaan u duuli doonaa muxuu ahay dalka Norway ka bacdi UK baan ku noqon doonaa. taasi waa inta guud ee safarka yagii. haddii aan u galo arrimaha dalka waxa ugu weyn Somaliland waynu ognahay meesha ku taalo, dalka ku xirxiran waynu ognahay, duruufaha dunida ku socda waynu ognahay. marka dalkeenu maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin horta caam ahaan
ilaahay bay ugu maadaqanaa horta nabadgelyo guud buu haystaa nabadgelyo guud buu haystaa waxaynu ku faannaa waa dal nabadgelyadiisa iyo dhowritaankiisa aad iyo aad soo ilaaliya ummadda reer somaliland waxay soo gashay halgan aad dheer bay soo gashay dagaal aad dheer bay soo gashay halgankii haddee laga gabeeyey ee kumayaalka ku dhinteen ee dalka ku xoreeyeen ee dad badan u dhaawacmay ee agoon badan maanta u jirto ee badan nafta u hureen ya ayaa horta ummaddan ay halgankaa dheer ba usoo matay xorriyaddeed iyo madax banaanideed intii ka dambaysana in badan baa isku dayday lama daynin intaa laguma daynine marar badan baa la isku dayay in nabadgelyadeeda la burbursho dibadda lagaga soo doolo kuwii ugu dambeeyeen ogeyn oo wax la yeelo xasilooni iyo deganaanshaheeda ajnabi lagu dilay dagaallo gudaha la isku dayna dhacaan ama lagu guulaystay in marmarka qaarkood ay isku dhaca yimaadaan waxaasoo dhan haddana waa laga soo gudbay mujtamaceenu wuxuu noqday mujtamac bisil buu noqday mujtamac khibrada buu noqday mujtamac waayo arag yeeshay buu noqday mujtamac inuu khibraddii uu soo maray ka faa'iidaysto oo waxyaabo badan isagu uu halgankii kusoo dhaqmi jiray uu ku guulaystay bay noqotay waxaa beri dhexe la isweydiin jiray oo aan xusuustaa bani cabdillaahis joogay koonfur joogay soomaaliya ayaa dunidu waxay isweydiinayso shirar badan dunida lagu qaban jiray sidee baa dadka hubka haysta iyadoo aan dunida ciidama looga keenin hubka looga dhigi karaa waa soomaaliya laga hadlayaa soomaaliya laga hadlayaa muqdisho shirar baa lagu qabtay addisaba iyo meelo badan oo dunida ah su-aalaad kale isweydiin jira waxaa ka mid ah war somaliland ciidamo dibadeed looma keenin oo hub ka dhigta looma keenin sidee bay ugu suurto gashay somaliland oo jabada qabsadeen oo jabada ahaa oo dagaalo ka socdeen oo meesha xasuuqa uga badani soo maray ahaa oo meesha ugu hubad badneed ahay oo dagaalada ugu badani ka dhacayeen maxay ku suurto gashay inay iyaga u suurto gashay in iyagu hubka iska dhigaan iyagoo aan ciidan dibadeed iyo mid united nations iyo mid jamciyadda qurumaha ah iyo mid africa ah iyo midda loo keeni iyaga ugu suurto gashay su-aal bay noqotay aada uga wareerisay dunidii afrikaanki hadday iyaga u suurto gashay oo hubkii iskool isaga dhigeen oo ciidan samaysteen oo calan samaysteen oo qaran samaysteen oo dawlad samaysteen maxay uga suurtogeli weyda waa su-aal ilaa imikana aan laga jawaabin weeye oo ay jawaabteedii lahay marka runtii dadka reer somaliland waxay leeyihin taarikhda ku faanaan bay leeyihiin halkii ku faanaan bay leeyihiin markaan arno meelaha badan wax ka dhacaya ku farxi mayno markaan oran dhibaatooyin ka dhacaya walaalaheen ama gobollada kale ama africa inteeda kale ku farxi mayno meeshii bani aadamka dadka muslim joogo walaalaheen joogo meel walba waxaan la jeclay nabad iyo caano iyo xasilooni iyo deganaansho la jecelahay kula shaqaynayna laakiin waxa weeye waxaad maantada arkaysaa waa anagu markaa dee siyaasiyiin ahaa oo dad majuur aho bisil oo ka warqabno oo la socona maalin alla maalinta wax dhacaan ama marka wax yimaadaan dhaqan baa bilaabmay oo jira oo aynu hiddo u leenahay inuu markiiba gurmad baa kaca iminka wax kale iska dhaaf iminkadan ugu dambaysay ee aanu ka imanayay hargeysa somaliland aanu ka nimid waa ogeydeen doontii ka socotay berigin maamulka maanta jira ee uu nidaamkan uu ka madaxda yahay daahiryaale waxaa u dhaqana inuu had iyo goorana doono marka waktiga doorashadu yimaado inuu intuu yidhaahdo nabadgelyadan ama intuu abuuro helo sabab loogu kordhiyo muddadii waan doorashadii loo qabso mar walba waxaan isku dayno axsaabta mucaaradkii inkastoo sidaanu sheegayna ana waan nahay dad mas-uuliyad xilkasnimo muujinayo dalkiiyo dadkaba u tuuraya oo sidii taarikhimika laga warramayay aanu mar walba taamidaanta siinayay haddana waxaanu lahay marka waktigu kaa dhammaado madaxweynow marka waktiga lagu doortay ummadda wakti go-an baa lagu doortay had iyo gore xilkuna wuxuu saaran yahay in doorasho la qabto madaxweynaha la doortaa markuu waktigu ka dhammaado
xilku saaran inuu doorashadii qabto marka hadduu isagu noqdo ka faa'iidaya inaan doorashadii la qaban ee mar walba usii kordhayso sabab uu qabtaa ma jirto waanu diidanay mar alla marka ay hawshaasi dhacdo gurmad baa dhacaa imika ayaa dhaweyto waan ognahay taageerayaasha dibaddu iyo berigi horeba way nagu qabsadeen waxay mar walba marka daahiriyaa loo kordhinayo uu dheeraysanayo maxaa u ogolaataan reer kulmiyow ee u yeeshaan waxaan u yeelaa mar walba u yeelaa waxaa kaca dad ka dalka oo culimo leh oo madax dhaqameedya leh oo dhalinyaro leh oo waxgarad leh oo gabayaa leh oo hal abuur leh oo dad xilku dabqayo oo dadka iyo dalka u darinaya ayaa jiro badan dadkaasi markay na dhex galaan waxay ku taliyaan baanu yeelnaa dad ama iska baqay ama fuliyaal isdiiday ama ka gabaday ama tabana waayana arkin haa waxaan fulinimo ay noo noqonaysaa waanu u turaynaa dalka iyo dadka yaga wax camal ka dhacayaa noogu filan waarba marka qaarkood waxaana soo mar waa ogeyno way ninka ka sheekeynayade war haddaanu gabano si balbaliya iska sii jooganayay waxaa oo dadku haydala arko oo ummaddu haydala arko oo shacbigu haydala arko iyagu qaanta ka joogta intiina waradaa ku dagaalamaya ku dheeray intay warada iyagu markay qaanta ka joogtay war naga baydiya waxa kale khayrkaa ha gaadha warba markaa idigu qaanta joogtaa noo sheego mara waa taa imika aad maqlaysaan dumarkii hagbadii waa tii laga dhacay hagbadii dumarku meesha martee lama arag carruurta iskuulladeedii aad maqli jirteen qaarkiin arkeen wax kusoo barateen kusoo koray waa maanta la iibshay suuqa laga iibshay suuqa la dhigay waa idinka maqlay xoolihii noolaa ee weligeed waxa intaynu ifka ku noole xoolaha nool baa inu ahaa waxaanu dibaddii u dirano ilaa waktigii xataa siyaad barre ugu adkaa ina soo maray ee uu hay-adda dhan u samaysay livestock development agency-ga ee oranteeda dibadda iyadaa marketinga geenaysa waxa quli la taaban kari waayo wuxuu ahaa ganacsiga xoolaha nool baa la taaban kari waayo waa kuwii shacbigeenu reer waqooyigu u diri jiray carabta u diri jiray qofka iyo neefka iyo marketkiisa iyo suuqiisa way isku xidhaayeen maanta inta la wadi baa nin caraba la siiyey intay odaga heshiiyeen nin baa loo xay ninkaas wuxuu maxjar baa idin samaynayaa berberaan soo noolanaya berberay ka dhoofaya inta imika berbera la keeno yaa markii berbera marayaan xoolii inta laga lugaysiiyo ama gawaari lagu qaado ayaa jabuuti laga dhoofshaa kama dhoofaan berbera xoolo imika heshiisna waxaa lagula galay nin caraba sababta ummadda laga dhadhacsan waxbay wuxuu inoo furayaa suuqii sacuudi arabiya tiina maanta ma jirtay meelkaa ka dhooftaa kaas waa kuwii xoolaha nool birtii tumaalaha juriteen birtii la wada ururi ikadiyo socota kalluunkii badda waxba kama yaalin kalluunkii badda waxaa la siiyey dad ajnabaa la siiyey ama qaar baa xaaraan uga ugaarsadaa cadbadeed kusoo dhigan iyagana markaa horta hawlo fara badan ayaa dalka ka socda ummaddu shacbigu maanta anigu waxaan aaminsanahay wuu dareensan yahay wuu arkaa marka la weydiiya taageersha xisbiga kulmiye weydiiyaan ay yidhaahdaan bal adiga maanta in doorashadii baynu inagu doorashadii abaaranahay ka waran waxaan ku kalsoonahay maanta shacbiga reer somaliland wuu og yahay way ka dhaadhacsan tahay boqolkiiba boqol buu arkaa xaaladda dalka maanta qof loo tilmaamayaa ma jirto dadku wuu og yahay waxaan hubaa in aan maanta dadkaasi kalsooni ay ku qabaan nidaamka maanta halkaa ka dhisan inaan u jirin laakiin aynaan u baahnayn inaynu inagu waxaa wax ka dhaafsiisan wax doorasho xalaala ku yimaada mooyeen qaab kale ay wax ku yimaadaan aan la ogolayn dalkii dhaweyto markaanu hawshaa yeelnay waxaa iyaguna door weyn ka cayaaray runtii
deeq-bixiyayaasha dunida caalamka waxay naga taraa oo diiwaangelintii maal fara badan ku baxshay oo iminka markhaati ruux kala badan ka kacay waxaanu ilaa maanta ku dagaalamayna oo leenahay annagu waxaanu doonaynaa doorasho xor xalaal doorashadu goormay xortoo xalaal tahay maaha doorasho kasta ma aha doorasho xor xalaala doorasho waxay xortoo xalaal tahay marka loo siman yahay oo maxay ah ilaa iminka taanaan annagu ka hayo wax kalsooni ah oo aanu doonayno in shacbigii ummaddu iska ogaato oo waxa qulaan uga digayna uu dadweynaha yahay oo waxyaabaha idinka appeal idinku samaynayno ama idinka barayno inaad dadkeena dareensiisaan ama meel walba aad ka howlgashaan waxa weeye dawladdu waxay doonaysaa xataa doorasho haddii la qabanayo inaan doorasho xor oo xalaali dhicin haddii doorasho ka dhacdo sidee baan doorasho xor oo xalaali ku dhacayn waxa weeye hantidii qaranka waad maqasheen oo mar alla markaad doorasho joogto ayaa lacag cusub oo hor laba horta lasoo daabacaa baanka dhex soo daabacaa nooran cusub oo cidda ka badan oo billions ayaa lasoo daabacaa weli lacagtii burcee gaybaartii laguma bedelin intii dawladdaas histee sanaduna marka lasoo daabaca waxaa la lahaa burcaa lacagta laga bedelaya hore gabowday lagama bedela maxaa lagu sameeyaa suuqaa la geeyey waxaa lagu ibsadaa dad baa lagu ibsadaa food baa lagu ibsadaa cod baa lagu ibsadaa wax kaloo baanka loo samaystay ma jiro waarogtii bank private kama furan dalkeena iminka mid jabuutina laga furay looma furin dadkii shacbiga lahaa looma ogola inay bank furtaan ee xawaaladaha lahaa ama sida kalmadooniya furtaan ganacsigii lama furfurin waxaanu leenahay annagu halkaa marka ay timaado ganacsiga marka economic policy timaado dastuurkeena iyo sharcigeedu wuxuu qorayaa in badeecad baayica mushtar xalaala oo xora oo madax bannaan oo xoolaha loo madax bannaan yahay oo qof waliba meeshu doono ka iibinayo sacuudi arabiya ka iibinayo carabta kale ka iibinayo meeshu doono maranayo ka dhoofinayo dawladdu waxay cashuur ku leedahay ay ka qaadato wixii lagu ilaalin lahaa caafimaadka maxjarad iyo wixii loo baahnaa ay xilkeeda iyo waajibkeeda ka soo baxdo laakiin aan la faragelin waxaanu u taaganahay in baayica mushtarka gebigiisaba wuxuu wax ku dhalaa wax ku noqdaa marka dadkii shacbiga awoodda la siiyo oo hal abuur badan u yimaado waxaanu kaloo diyaar u nahay haddaanu xisbiga kulmeennahay in cadaaladii lumtay oo maanta qofka somaliland ee jooga inta uu maxkamad isla taga ay dadkaasi yar tahay shacbiga wuxuu bilaabay inuu iska badaayo maxkamadihii waayo dhaqankay lahaayeen culamaa diinka la isula tagaa madax dhaqameedada la isu tagaa garahooday ku kala baxaan dadku intiisa badan waayo maxkamadii maxaa laga dhigay meel maxkamad laga baacibisanaya laga dhigay meel suuq baa laga dhigay waxaasoo dhan waxa ugu cad dawladdii caafimaadkii baa ka daran noloshii baa ka daran dhinac kastoo loo eego waxaanu qabnaa dawladda maanta joogtaa inay waxa kusoo korisay ay corruption tahay waxa kusoo korisay ay horumar la-aan tahay wadooyinkii meeya hargeysa haddaad marto wadda qura dhex marta waddana isku xidha waddana maxkamada hormarta sidii berwata loo qarxiyeyba waddadiina hareeraa laga xidhay xaggaana waa laga xidhay xaggaana waa laga xidhay waxaa la aqalkii madaxweynaha iyo xafiiskii madaxweynaha meesha marka waxay noqotay in la wareego berna wato aan mudaharaad samaynayna xisbiga kulmiya waad maqashay bergiina la toogtoogtay isida ina la toogto xaglaan baana ka dhiba mushkiladu wax kale dadkii xafiiskii aan mudaharaad ku samaynay kuliiskeeda ilaalinayeen yaanu soo dhaqay gurigaygu marka xafiiska laga yimaado jihada uu ku beegan yahay waa halka guriga madaxtooyadu yahay markaan meesha ka soo dhaqaaqday meelaanu soconay garan waayo markii arkeenaan ku soconno meeshii madaxtooyada ilaahay uga dhigay ayayba saseero khalkhaleen rasaas xagga u tuur waanu iska soconnay mar dambe markaan meesha kusoo dhawaanay khalkhaleen ayaa loo sheegay markaasa waxaan ku soconnaa gurigeegaan ku soconnaa markaase intay laga yaro durkeen isku gudbeen muxuu ahaay dariiqii noo dhexeeya annaga iyo madaxtooyada intaasaa gilgil ugu fugay marka waxa weeye xataa madaxtooyadii baa laga dhex saari kari waayo magaalada bartankeeda laamigii laga dhex saari kari waayo horta arrimahaasi waxa weeye arrimahaanu sidaan wax ka qabta waa ganacsigii waa caafimaadkii waa ka qaybgalkii iyo dastuurka qaranka waxaanu doonaa sidii walaalkii maxamed cabdilaahi u lahaa in haddii ilaahay nafta noo daayo
inaanu oo muxuu ahay xisbigaasi ku guulaysto inaanu barnaamijkaa wax ka bedelno inaanu sharciyadda ku noqono waan weligeed aleed ku koobnaan siyaasaddu wax xidhan inay noqon way nagu cusub tahay qaab bay ku timid farsamay ku timid sababaha kale inay saddex xisbi ha noqoto oo sidaan meelo badan hore in badan aanu maqasheen waynu ogeynay dee dimuqraadiyaddu waddan walba qaab buu ku shaqeeyaa waxayna tahay doorashooyin berigii hore imika wixii ka horreeyey dalkii markii aynu jumhuuriyaddeenu ka mid ahaan jiray jumhuuriyaddii la odhan jiray Somali Republic inaga iyo xamar iyo isku midka ahayn berigii ugu dambeysay muxuu ahaay intaan koob sagaal iyo lixdankii aanu qabsan siyaadda rebeesha qabsan waxay ka dhacday inqilaabkii caskarigaa keenay waxay ahayd doorasho xumaatay dimuqraadiyad xumaatay dhowr iyo 80 xisbi baa istaagay doorashadii shilib waliba wuxuu samaystay xisbi mar alla markii maalintii doorashada dhammaatay ee xisbigii SYL la odhan jiray u helay uu madaxda ka loo dhaxsay maxaa jibraaci ee ku qabatarka ayaa xisbiyadii roobla dhacda ahaa oo nabadhow iyo seeta ku intay baaba'een iyo xisbiga adkaaday wada galeen kulligood si ay wasiirro u helaan oo xisbiga wax uga qaataan cabdirasaaq xaaji xuseen baa xustaado berigaa dabka ka hadlaya xamar oo leh markii barlamaankii lagu wada shubmay ana waaxid wa alla waaxid isagoo leh keliya baa ka soo wixii barlamaanka soo galay marka horta khibradaha caynkaasa baa keenay in la yidhaahdo yaynan xisbiyada isku badin aan xisbiyada aan soo koobno xisbiyadii koobnaana waynu aragnaa iyaguna dareenka ka yimid ee dadweynaha ka yimid xaggiisa ee ah war weligeed siyaasaddu waxay u xidhnaan saddex xisbi bay u xidhnaanaysa wayaba runtii halkaasaan u baki jiray marka xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay inuu dib ugu noqdo iyadoo dastoorka la raacayo dastoorka dib loogu noqon doono in dib loogu noqdo siyaasaddii oo si maxaa cadila lahaa loo furfuro siyaasaddii dib loo furfuro oo qaab u cuntabi kara waktiga iyo sababka iyo mustaqbalka loo dhigo waxaan diyaar u nahay in xukuumadda ugu waaweyna dhaqaalaha dalka sida beeraha xoolaha iyo wixii lamida in horumar wax ku ola loo sameeyo waxaanu diyaar u nahay in infrastructurekii wadooyinka dalka isku xidha qaybihiisa kala duwan in la wada dhiso ayaanu diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay inuu la xidhno wadamo sida China oo kale ah oo maanta wadamo badan Afrika ah wadooyin u samaysay oo railways u samaysay oo wax u fuftay in dawladaha iyo qaramada waxay la tali karaan waxaan diyaar u nahay resourceska qarankeena ay ku manaystay sida batrool kale kalluun kale waxyaabaha noocaas oo meel leh macaalinta leh ee maanta laga faa'iideysan si tuuga ah dad gaar loo siiyo in si sharciya loo siiyo oo dadka qaranka iyo ummadda wax ugu filaadaan waxyaabaha inaanu muxuu ahay dhalinyarada iyo dumarka inaanu siyaasadda si buuxda uga qayb gelino oo da-dooda masalan da-da dhalinyarada iyo inaanu oo imikana waa inay 5 iyo 30 gaaraan inaanu ka dhigno 5 iyo 20 iyo 20 iyo wax la mid ah inaanu ka dhigno shuruucda ku bedelo ayaanu diyaar waxaanu diyaar u nahay inaanu wax alla wixii ummaddu talo iyo arrin la imanayso waxaanu inaanu fikirka iyo talada dadka dibadda jooga waxgaradka mutacalimiinta ah ee dibadaha jooga ee wax bartay inaanu fursad siino inaanu fursaday dalka maalgeliyaan inaanu siino inaanu dhul siino inaanu dhul develop garayaan siino inaanu talooyinkii arrinka wax ka siino waxaanu diyaar u nahay inay dibadda nooga wakiil noqdaan waxaanu diyaar u nahay inaanu dalka furfuro oo dalku uu noqdo dal dadkiisu leeyahay ee aan maalin walba 4-5 qof u xidhnaan baanu diyaar u arrimaha haddii lahay ka dhigo ayaa xisbiga kulmiye uu muxuu ahay barnaamijkiisa ku wari jira kulli mala haddii aad website-keeda gashaan xisbiga kulmiye barnaamijyadiisa wada arki doontaan waxa aanu ilaahay ka rajaynaynaa in aad nagala soo qayb gashaan ololaha doorashada ilaa imika wixii ka bilaabma ayaa ololihii uu bilaabayaa ama iminkaba wuu socdaa kanan ku jira olol uu ka mid yahay karyaal uu ku wareegayo olada
وأنا حتى أدمر عن رأي تونا كم قرية أنا أقول السلطان يا لما دي بينات قاعدين وحصل بوراي كم دي يا واحد يذكر شيء وأنا تقعد سنة إلى نجلس وقيم كشان درها الدرك إلى نجلس وقيم كشان دور شيكة إلى نجلس وقيم كشان إلى ضدك هالك الله هذا الشان إلى اعتمادان إلى لرجال لسان إلى مال ورسان إلى حوك إلى الدرك هي مستقبل كيسي عايز يد اليوم مستقبل إلى وهي لسان أيام تقعد سنة اللي كدور هذا كلام وحصل أيام محايد إذا كان شيرنا هذه أنا مركز وادكم هذا قيا وحالته وبقية دارالها صوب قابيو وحي حالات الفرصة يرضى يدير وحي سؤالات يبرع قدام كودينية وحي لقى فارق وايو سؤالات يكمل تبع إلى كذا يصير ديار هذه أنا